السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada asxaabta qiimaha badan ee maamul sokortaada. Waxaan ahay hooyo la soo nooleed cudurka sokorowga dhiigga muddo 27 sano ah. Ugu horreyntii waxaan rabaa inaan kor istaago halista ka imaan karta haddii aad isku sii dayso cudurka macaanka. Dhibaatooyinka kula soo darsi kara waxaa ka mid ah xididada dhiigga wadnaha oo xirma, indhaha oo nuurkoodu baaba'o, keliyaha oo fariista, beerka iyo wadnaha oo joojiya shaqadii ay u hayeen jirka. Bulshada Soomaaliyeed xanuunka sokorowga dhiigga aad iyo aad ayuu ugu faafay, saasoo tahayna dad badan way yaraystaan cudurkan. Waxa aan jeclaystay ayaa ah in aan idinla wadaago qaabka ugu fiican ee looga hortago inay dhibaato jirkaaga u geysato sokortu biidnillaah, adigoo mar walba ilaalinaya cunto fiican oo caafimaad leh, jimicsi fiican iyo hurdo wanaagsan. Sokortu maanta meel walbay ku jirtaa, dad badanna way ku dhacday. Da'na ma lahan qofka ay ku dhacayso, ha yaraado ha weynaado, waayeel ha ahaado. Dadna waxay ugu dhacdaa qaab dhaxal ah. Ma ihi qof dhakhtar ah, mana ku sii doono tala daawo, laakiin biidnillaah waxaan kula wadaagaa hab fudud ee aad ku xakamayn doonto sokorta jirkaada si aysan kuu gaarsiinin waxyeelo. Fadlan ha iloobin inaad kanaalkan subscribe garayso, gambaleelkana furato si aad ula socoto mowduucyada muhiimka ah ee aan jeclahay inaan la wadaago walaalaha Soomaaliyeed ee qaba cudurka macaanka ama la dhibaatoonayo ee jooga dalka iyo dibadda. Waad ku mahadsantihiin daawashada. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.